waxaa la baabiyey ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya waxaana cadawga loo loogay saraakiil geesiyaal ahaa taas oo Soomaalida oo dhan ay marqaati ka tahay sida ay dayacaad ay ku dhinteen cadawguna ay ku dileen waxa ciidanka Gurmud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn hab dagaaleedka kooxda qawaarijta ee ku dhufo ka dhaqaaqda kuwaas oo halkii ay ahmiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka kaliya ku mashquulay sidii saadka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka loo leexsan lahaa kadib kulamo in muddo ah u socday xubno badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in la gaaray xilligii si dhab ah loo sixi lahaa hanaanka isku milanka taabagalay ee hay'adaha fulinta ama xukuumadda iyo xeer jejinta oo ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya taasoo ay ugu wacnayd guddoonka baarlamaanka oo garan waayay shaqadii ahayd in ay jiheeyaan in lala xisaabtamo xukuumadda la baritaaro sharciyada muhiimka u ah dawlad dhiska Soomaaliya taas oo beddelkeeda ka doorbiday danahooda gaarka ah inay baaqi ku sii ahaadaan xilalkooda waxay hay'adda fulinta ay marin habaabisay siyaasadii arrimaha dibadda waxay xukuumaddu gashay heshiisyo caalami ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa laga talagelin garyaqaanka guud kuwaas oo qaarkood ay iska hor imanayaan isna burinayaan waxaa la baabiyey ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya waxaana cadawga loo loogay saraakiil geesiyaal ahaa taas oo Soomaalida oo dhan ay marqaati ka tahay sida ay dayacaad ay ku dhinteen cadawguna ay ku dileen waxa ciidanka Gurmud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn hab dagaaleedka kooxda qawaarijta ee ku dhufo ka dhaqaaqda kuwaas oo halkii ay ahmiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka kaliya ku mashquulay sidii saadka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka loo leexsan lahaa waxaa la balixaadsaday musuqmaasuqa hay'adaha dawladda dhexdeeda iyadoo la abuuray shirkado gaar loo leeyahay oo aan ku iman hab daahfuran kuwaas oo qabanaya adeegyadii dawladda ay u xilsaarnayd iyadoo ujeedku yahay in lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaar ah oo saaxiibo la ah madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa si baahsan loo qaatay dhulkii danta guud tiyo xitaa aan laga maarmi waayay in la qaato ama dadka laga saaro xabaalo ay ku asnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh kuwaas oo qaarkood u geeriyooday in ay u adeegaan dalkooda bulshadooda kana qayb ahaa difaaca dalka xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacaawday dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ay ku guul dareysatay hirgelinta ballanqaadyadii iyo qorshayaashii ay 2 sano ka hor baarlamaanka soo hordhigeen waxaana hay'adda fulinta ay hor istaag ku samaysay haween Soomaaliyeed oo lahaa hami sare inay hoggaan ka noqdaan qaaradda Afrika iyadoo u danaynaya maslaxad ay leeyihiin dalal kale waxaana ugu dambeysay Marwo Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo u taagan madaxa midowga Afrika taas oo si aqlabiyada ay isugu raaceen musharaxnimadeeda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya balse ay si cad uga hor yimaadeen hay'adda fulinta oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa aanay waxba ka hirgelin heshiis ay saxiixeen madasha wada tashiga qaran kaas oo qodobkiisa ugu horeeyay ee doorashada la xiriira uu dhigayay in doorashada dawladaha hoose ee dalka la qabto 30 Juun 2024 taas oo haba yaraatay inay dhacdo iska badaaye xitaa aan la arag wax soo hadal qaadaya xubnaha doorka ah ee golaha shacabka ee qayb yar ay ka yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan waxa ay ugu baaqayaan guddoonka inay ixtiraamaan shuruucda iyo xeeroosaadka u yaala baarlamaanka oo aanay isku dayin sidii hore u dhici jirtay inay carqaladeeyaan habsami u socodka howlaha shaqo ee baarlamaanka iyo si uu waajibaadkiisa u guto waxaan hadalka intiisa kale iyo khudbaddii madaxweynaha ku saabsan aan u dhaafayaa xildhibaanada kale ee gadaashayda taagan si ay u sakan gareeyaan soo dhawaad